Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh inoogu soo safreen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8 bisha waxaan ku faraxsanahay inay shacabka Puntland iyo dawladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya magaalada Muqdisho caalamka waxay noo tahay sharaf gaar ah waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida sharafta leh oo waalidnimada leh adiga iyo shacabka reer Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweysay aniga wafdigeyga iyo marti sharafta kale oo la socota runtii waa filaynay soo dhaweyntan wanaagsan oo waalidnimada leh waa filaynay xaqiiqatan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan joogno adiga laba casho hadii Ilaahay yiraahdo waan idin la wadaagno caleemasaarka iyo maxkamada dabaaldega oo aan la hadalno shacabka reer Puntland khaasatan reer Garowe hadii ay yiraahdo waana ku hambalyeynaa doorashadii sida wanaagsan u dhacday oo transparency ahayd oo adduunka oo dhan laga fiirsanayay murashaxiintii kale iyaga naftigooda waxaan leeyahay hambalyo yaan leeyahay sida wanaagsan runtii uga qayb galeen doorashada kulligoodna ay u aqbaleen natiijada